khuraafaadka noocaasa ayaa ka jira dhuusamareeb gaalkacyo iyo gurceel in la yiraahdo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuusan awoodin Sheekh Abdul Qaadir awooda in la yiraahdo ilaahay iyo Sheekh Abdul Qaadir isku awood waxa gaalkacyo ka jira maxaa kamid ah khuraafaadka madadayaa jilaani mandadayaa hadradu waa saddex waxay u kala bixiyeen baqdaadiya gaab iyo baqdaadiya dheer iyo sacdiyo maxaa la yiraahdaa digri bay ugu magac dareen hadraa rabbana ya rabbana ya rabbana bilighu silatu shamit bina qusada wa miday dhahan sacdiya li sawad ayaga xagee ku imaanaysa waa baqdaadiya dheer weeye taa sacdiya la yiraahdo baqdaadiya gaab maxaa kamid ah mandadayaa jilaani aqithna yaquuthu mandadayaa jilaani gaalnimo bilaahi alcadiim weeye beejkaas qofkii aamida miri diinta ku jiri maayo waa ka lugaynaya marka walaalayaal shanta boos waxaan rabnaa inaan ka dhigno markaas waxaan baaq dheer u dirhayaa jaaliyada Soomaaliyeed meel kasto ay adduunyada ka joogto jaaliyadaha dhan qaasatan jaaliyada Galmudug wallahi xuquuq baa naga saaran waajib baa naga saaran ilaahay baa na weydiinaya waxa wax nala ka weydiinaya dadkii aan dayacnay waxa nala weydiinaya deegaankii aan dayacnay waxa nala weydiinaya ilaahay diintiisii aan dayacnay waxa nala weydiinaya meeshii xudunteenu taalay oo maanta aan laga ogolayn ilaahay kaliya in laga caabudo oo shaqada loo sii marayo jaranjar way shaqaas hadii aadan raacin ma laga aqbalayo aaminsan yihiin waxa lagu leeyahay waa ku tawasulayna walaalayaal dadkaas badbaada naga raba hadaba markaskaasi lacag $200,000 ku dhow ku baxaysa shanta boos baan dhisaynaa intay rabtaan ugu qaadata ilaahu ma xataa kaliya aan qolal kaliya ka dhigne inaan markaskaas sameeyo oo gaalkacyo ka dhisaa iga go'an waxaana sadaqaystay walaal muxsina shan boos weeye dhismihii baa Soomaali weyn laga rabaa waxaan u baaqayaa culamaa diinka meel kasta ay joogaan culamaa salaf ku nool magaalada Muqdisho ku nool gobolada dalka ku nool adduunyada oo idil culimada Soomaaliyeed guud ahaan waxaan kala baaq u dirayaa ganacsatada Soomaaliyeed waxaan kala baaq u dirayaa jaaliyadaha Soomaaliyeed waxaan baaq u dirayaa jaaliyada Galmudug waxaan baaq u dirayaa hay'adaha islaamiga ah oo qarash gareeya islaamka inuu faafo hay'adahaas qofkii yaqaan xataa ugu soo xiro waxa dhamaantiin idinka codsanaya in aad igala qayb qaadataan dhismaha markaska weyn oo aan rabo inaan ka dhisayo magaalada Gaalkacyo بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وسيرا من أهلي أما بعد ولا ليال وحان سميني مجمع ليرهدو مجمع بدبادة دين إسلامك مجمع عاسي وحا كهير جليني مقالة مقدسو إيا مقالة Gaalkacyo magaalada Gaalkacyo waxaan ugu soo dhaweeyay Fuaad Nuur oo majmaca badbaadada diinta islaamka ee ku kaalmeeyay siiyayna shan boos oo uu yiri waa sadaqo ha laga sameeyo markas diinta islaamka laga faafiyo oo dadka lagu baro aqoonta islaamka lagu baro walaalayaal hadii aan nahay majmaca badbaadada diinta islaamka oo ah majmac anigu aan aas-aasay oo ay kamid yihiin culimo fara badan culimada islaamka kuwa Soomaaliya jooga iyo kuwa dalka dibadiisa ku maqan kulli waa ku midaysanahay majmacan waxaana ka hortagaynaa wax kasta oo shirkiyada wax kasta oo diinta islaamka ka hor imaanaya wax kasta oo aan ku banaanayn shariicada islaamka hadaba maxaan la dagaalamaynaa dhageyso waxa aan la dagaalamayno waa wax qofkii islaam oo maqlaa uu ka shakinayo islaamnimadiisa waana xaqiiq wax diinta islaamka looga baxa weeye waxa anagu aan dagaalka ugu jirno oo aan rabno dadkeena inaan ka badbaadino waxa kamid ah kitaabka la yiraahdo munaaqibka aan idin aqriyo dhageysta nadartu bi'ayni al-fikri fi hani hadrati habiban tajalla lil qulubi fa hannati naf'ana Allah bi jama'a wal muwaqana samaha
jamca kasta waan qaadnaa oo maxay tahay marka shirki billahi alazim diinta islaamka daqiiqad ku jiri maysid hadaad aamintid bay dadka ku yaala oo maxay tahay wa amri bi amri llahi in qulta kun yakun wa kullun bi amri llahi hukmi wa qudrati naf'ana allah bih jamca walba si qaadayna wa amri aniga amarkaygu bi amri llahi ilahi amarkiiso kala waay sheekh abdul qadir ba aaminsan bay leeyihiin in qulta hadii aan iraahdo kun ahaw wax kasta oo aan waaqi ahayn oo aan aqliga gali karin iyo kun ahaan haya wa kullun bi amri llahi wax kasta ilahi amarkiisa ahaan jirayna fahkum bi qudrati ma anta awoodida lagu xukmiyo sheekh abdul qadir ba ilahi kuleeyihiin inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ilahi ba iskalaha wala yaalma waxaan aaminaa sheekh abdul qadir ba ilahi ku awood ah ma waxaan aaminaa sheekh uways ba ilaahay ku awood ah walaalayaal ma waxaan aaminaa sheekh abdul qadir iyo ilaahay ba isku awood ah sheekh uways iyo ilaahay ba isku awood ah sheekh ali samatar iyo ilaahay ba isku awood ah sheekh biimaalow iyo ilaahay ba isku awood ah sheekh muxyidiin cilli iyo ilaahay ba isku awood ah intaas miyaan aaminaa gaalnimo waa xaqiiqatan gaalnimo waa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ومن يشرك بالله إلهي دنبغا كستا وا دافا لكن شرك إلهي ما دافو waxyaabaha aan u baahanahay in aan dadkeena ka badbaadino kamid yahay hadaba xadarada uu suufiya aaminsan yahay waa saddex aan taariikhdeena kaga sheekeeye anigu waxaan ku jiray suufiyo wariga suufi baan ahaa waliba ayagu ay yaqaaneen maadix markii dambe oo aan xaqii bartay oo quraanka la ii macneeyay oo diintii aad aan u dhaxgalay markaasaan ogaaday wax aan ku jirna baadil inuu yahay anigu waxaan qaadi jiray digriga waliba waxay ii yaqaanaan hada sawtu rahma waxay u yaqaanaan baan u malaynayaa yurubgeeyo anigu waxa la iga yaqaan gaalkacyo sawtu rahma maadix waxaan qaadi jiray tahiyatu minar rahim ta'um shaykhana kumal هم حيدين الله ما والكرم شيخ هي تحيات الإله العلى الإمام وإسناتان هو لقضب الذي قد قال فيه منزلوتين حسن قال تري معناه هذا مركب ما يدين شيئا معناه هذا وحرك ما تشرم قفرته عربي إن أدبرته معناه سام مهمة هدي أدبرته معناها عربي قال لقما قال ذكر ولا ليه لكن هدي أدنى قونين والله بالله والله قال ذكره معاك من الحيوان قال ترنين فيا عاشقي هنا على النبي فازدموا والله هل بالمطلب وبالأمن من مكر منبرا ما لي حرفة سوى مدحكم فمنوا علي يا بوصلكم وقم لي بالله مداثرا وحرون إن الدين تسلم كبرته ما هن إنا عاود دا كويسو سيدي أرجحنا ورايا وح نبي محمد عن شيء دين ما وح إلهي سبحانه وتعالى عن شيء الدين ما يا بها عن أبا هنهاي وعن ربنا إن أن لدق على النو وح يابها سكمل ولا ليا وح يابها عن أبا هنهاي إن أن عضينا وح أيهين شرك بالله العظيم أنه ضدك إنكم برباري منه magaalada gaalkacyo waxa ku nool dadkeeni waxa ku nool deegaankeeni waxa ku nool duuyadeeni waxa ku nool ehelkeeni waxa ku nool casabadeeni waxa ku nool qaraabadeeni ilaahayna wuxuu yiri wa anzir ashiratakal aqrabin ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaa'ika qiladun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun إلهي وحكولي يهي نفط هذا يأهل كاغا نارو غبا إنا لله وإنا إليه راجعون وحان قوبتوك وها هو يسوى ماليات أوله أيضا الشيخ عبد القادر الشيخ عبد القادر الشيخ عبد القادر أيضا نفتو كان عدم قوبتوك وها
Sheikh Abdul Qadir muxuu u tarik horta aan barano what is the Sheikh Abdul Qadir, who is the Sheikh Abdul Qadir? Sheikh Abdul Qadir waa bashar kula mida Iraaqiya Soomaali hatta ma waa Arab hadduu asagu ilaahay karaameeyay aduu maxaa ku daba dhigay caawo dhan Sheikh Abdul Qadir maxaa way saxaa ku liqdaaray ku daba dhigay ma adigu ilaahay miya adigu jaran qof baad u sii maraysaa waxyaabaha aan rabna inaan la dirirno waa shirkiyaadka noocaas oo kala walaalayaa Sheikh Abdul Qadir oo qof ku haya war ma ilaaha u dheh aqeedada muhiim ah qofka aqeeda oo Sheikh Abdul Qadir 9 bilood buu ku dhashay 9 bilood ku dhalatay ilaahay ma wakiilan oo risaalo lama soo dhiibin nabi maxamed baa isku si idin soo gaarsiiyay maxaa ku daba dhigay oo qabriga uu kaaga jiifay ha u tafaysa maanta dhan Sheikh Abdul Qadir oo waysa qasay yaraad kaga sheekaynaya ana marahaya waxaan ka imid meel la yiraahdo dhagtuur waxaan soo maray duqaaqo wanakiir lagu raqsiba saa uga soo tagay baabuur yaran wata leela calaawiya markaan marahaya lagu raqsi isgowrac inta u dhaxaysa gaalkacyaan u soo socda shiyaartii Sheikh Ali Samatar baa la dhigaya markaas waxaan arkay nin geel jira oo adiga iska ribaadiya oo aamiya wuxuu ku hayaa Sheikh Abdul Qadir Sheikh Abdul Qadir Sheikh Abdul Qadir awliya Allah adeeg awliya Allah markaasaan gaariga inta joojiyay waxa uu yiri assalaamu alaykum suuy alaykum salaam markaasaan ayaa taasuy in hebel qabilkaata anu nin saacad reehil ula ahaa yiri markaasaan haddana nin saacad reehil ula ahaan kula hayo in adeerka aduu ninkii waa ishaybsanay oo ilma adeer baan noqonay waa isfahanay waxa irnay Sheikh Abdul Qadir ma taqaan suuy Sheikh Abdul Qadir ha saas inta ii fiirsay booye nin wax la hadlaaba ma batidba hadda aniga awliyada ay weydiinaysaa 2021 miya Sheikh Abdul Qadir aniga ay weydiinaysaa kulaha ورد وحير Sheikh Abdul Qadir qabiil uu leeyahay nasabna waa leeyahay nabi maxamed baa qabiil leh oo maxamed ibn abdullah ibn abd al-mudallib la yiraahdaa nasab Sheikh Abdul Qadir nasabkiisa sheeg markaas uu Sheikh Abdul Qadir baa halkaas uu fiiriyay illa waa ummi ninku markii dambu iska soo jaray Sheikh Abdul Qadir kulay saad waa yahay laakiin lafu ka yahay garanayn baad ma ka tahay illa Sheikh Abdul Qadir wuxuu ku taageeray qabyaalad diinba kuma taageeray نسعد مودا markaas waxa yiri war Sheikh Abdul Qadir ma ahan Sheikh Abdul Qadir hadii Ilaahay ku idmahayo Soomaali hatta ma ahan bal saacad iska dhaafe saas uu tayfir muxuu yahay markaas Sheikh Abdul Qadir baa waa Iraq way Arab way mar damba ay ugu laaban biirinayo hadda balaayo iyo falxumo iga rabin galabta saaraha dhacay mashiiqi Abdullah awreer ay waragood saa u haybin jireen ba aniga ilaahay Soomaali ma aha waa Arab Arab noo galay Arab maxaa noo galay Arab miyaan aysan jirnay kula daacad waa dadka ku nool gobolada dhexe wallahi billahi tallahi saddex magac ilaahay ma Sheikh Abdul Qadir waxay moodaan inuu Saacdi haba qaar waxay moodaan inuu yahay qabyaalad bay ku taageereen war Sheikh Abdul Qadir waa nin Iraaqiya war nin Soomaaliya ma war waa Arab war waxa uu galabsaday Ilaahay baa yaqaan nin wanaag lagu sheegi jiru aha Ilaahay ha u naxariisto waa dhinta sheekh buu aha maxaa ku daba dhigay ma adigu sida Ilaahay uu asar martabada u gaaray ma adigu gaartay ma adigu Ilaahay baridid adigu markii daba ninkii way aamini way wuxuu yiri nagee culimada noo geebayay isgawra waa noo muuqatay isgawra aan nimid geedihii waa weyna qofkii yaqaan saddex igla u dhawaa waxaan ir culimadii ninkan isku dhaganaa Sheikh Abdul Qadir waa qalade markaas uu culimada la joojiyo kitaabka ninkan baa sheegsan bidciga Sheikh Abdul Qadir waa qalade markaas uu Sheikh Abdul Qadir Sheikh Abdul Qadir waa nin Iraaqiya suuye baasu tawfiir sawiir Soomaali ma ahan miya markaas uu yiraahdo Soomaali ma ahan Sheikh Abdul Qadir maxaa waqtiga nooga dhuminayseen marka taariikhdaas nimankii culimada uu leeyahay xaytaa waqtiga ka dhumina waa حاولت نبدأ ويدانا ونكون نسعى منو يري ما عربا أيسن لهم بيرتري وهذا أوين أيده Sheikh Abdul Qadir ولا بيد ما تدين لعذابك لا بيع منو يري حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله ولا رجال دت كاسا نوجب عن بدبادو دت كاسا نوجب عن الحق وشجنه دت كاسا نوجب عن أن تجع أن تقبلنا نران ووضع عذابك كتشوجا دت كاسا نوجب عن أن نران ور الله هيكلي عبادة وقال زيالة وحن سميي مجمع بدبادة دينة الإسلام والله قال كعيا أنا وكرنشون كإمد قال كعيا كبالله شن باص بالليسي كدق باللير مركز أنا مركز اللي كدق قرطي لكن شن باص بالني صدقيست مركز ولا ريال شنتا باص وحارنا كدق نورت مركز وحان باغدير ودير هيا جالية الصوماليات مركز سوية دوية كتشوكتو جالية ده خاصة جالية قلمدو والله حقوق ما نقص صارن
waajib baa naga saaran ilaahay baa na weydiinaya wax nala ka weydiinaya dadkii aan dayacnay waxaana la weydiinaya deegaankii aan dayacnay waxaana la weydiinaya ilaahay diintiisii aan dayacnay waxaana la weydiinaya meeshii xudunteenu taalay oo maanta aan laga ogolayn ilaahay kaliya in laga caabudo oo shiiqada loo sii marayo jaranjar way shiiqaas hadii aadan raacin ma laga aqbalayo aaminsan yihiin waxa lagu leeyahay waa ku tawasulayna walaalayaal dadkaas badbaado naga raba haddaba markaskaasi lacag $200,000 ku dhow baa ku baxaysa shanta boos baan dhisaynaa intay rabtaan ugu qaadata ilaahu ma xataa kaliya aan qolal kaliya ka dhigne inaan markaskaas sameeyo oo gaalkacyo ka dhisaa iga go'an waxaana sadaqaystay walaal muxsina 5 boos weeye dhismihii baa Soomaali weyn laga rabaa waxaan u baaqayaa culamaa diinka meel kastoo ay joogaan culamaa salaf ku nool magaalada Muqdisho ku nool gobolada dalka ku nool adduunyada oo idil culimada Soomaaliyeed guud ahaan waxaan kala baaq u dirayaa ganacsatada Soomaaliyeed waxaan kala baaq u dirayaa jaaliyadaha Soomaaliyeed waxaan baaq u dirayaa jaaliyada Galmudug waxaan baaq u dirayaa hay'adaha islaamiga ah oo qarash gareeya islaamka inuu faafo hay'adahaas qofkii yaqaan xataa ugu soo xiro waxa dhammaantiin idinka codsanaya in aad igala qayb qaadataan dhismaha markaska weyn oo aan rabo inaan ka dhisayo magaalada Gaalkacyo waxaan kaloo idinka codsanayaa haddii aad meel ku ogtihiin hay'adaha khayriga ah oo dhaqaalaha ku bixiya sida islaamka uu kor u noqon lahaa inay ayagana igu soo xirtaan culayska naga yaraanaya markaskaas la dhisayaa markaskaas markaan dhisno maxaa laga qabanayaa waxa laga qabanayaa aqeedada dadka lagu barahaya ilaahay kaligiis in la waxidaa dadka lagu barahaya ilaahay kaligiis in cibaadada loo qaalisay dadka lagu barahaya waana free wax shilin oo laga raba male waa college waxa rabnaa oo ka damacsanaa inaan cunno ku siino oo chief ku siino oo waxbarasho ku siino oo maadi iyo diin aan isku darnaa rabnaa ilaahay fadligiis ilaahay baan ka rajaynayna riyadaas inay noo rumowdo walaalayaal riyadaas idinka noo rumayn kara walaalayaal diinta islaamka aan ku bixino wama anfaqu min shay'in fa huwa yukhlif ilaahay subhanahu wa ta'ala meesha aad ku bixisay meel allaala meesha wax ku bixisay maada khasaarin aad khirad keenaysa maanta waxa wax lagu bixiyo waxa ugu wanaagsan diinta islaamka walaalayaal qu anfusakum wa ahlikum naaran baan naga horeysa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut aan bixino aan sadaqaysano aan kaabno aan badbaadino dadka iyo dunyada ku nool Galmudug aan badbaadino waliba Gaalkacyo qaas kuma ahana dhuusa mareeba bukhliga iyo xaraanta lagu haya guurceel baa bukhligaas iyo xaraanta lagu haya masaajid 10 sano ka hor ay xireen baa wali xiran qaar baa hadda furnaa alxamdulillaah rabbil caalamiin oo lagu tukadaa walaalayaal ilaahay aan war diinta ilaahay aan u kacno war aawa dadkii diinta difaaci jiray war aawa dadkii muxsinaadka ahaa war aawa dadkii suubanaa war markaska shanta boos hal nin baa sadaqaystay kaliya dhisa aniga bilaabahaya $1,000 iga diyaar aniga abwaan xaraga $1,000 iga diyaar hadda waa aniga abwaan xaraga $1,000 baa iga diyaar ku bixinaya meel kaste oo aad ku qancaysan baana diyaar laha inaan $1,000 aniga jeebkayga oo ehelka oo casabada oo waxa weeye aakhirada la weydiinayo oo la leeyahay wa anzil ajirata kal aqrabin kuwaas horta ka soo bilaabayna waa maraatib dhuu samareeb baan ku xujinayna gurceel baan ku xujinayna walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala garab ha idin siiye walaalayaal arinta garab naga siiye oo na taageera oo na dhiiro galiya oo diintan taageero iyo dhiiro galin bay meesha ay maanta joogto ku timid nabi maxamed alayhi salatu wasalaam diinta baryo kuma keenin diinta wuxuu ku keenay dulqaad diinta wuxuu ku keenay dagaal diinta wuxuu ku keenay dadaal diinta wuxuu ku keenay maslaxo diinta wuxuu ku keenay heshiis maanta diintii noocaas nabi maxamed dhibaatada u soo maray oo dhagax gaajo dartii caloosha ku xirtay oo waxa weeye ma dheer madaxa ay ka saareen reer bani Israa'iil hadii maanta Gaalkacyo la leeyahay ka warashay Abdul Qaadir iyo Ilaahay baa isku awood لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما ورقين بعد ما قشان ملك الموت قف بني آدم أنتو سماوات كوضبتك دنبيل نفف وجرين بحر حرانتي أنت كقد نفته نفتي كسر دكان كرا ما ورقين بعد ما قشان خرافات كنوع عاسى قال كعيا كتير أو قال سر كتير أو دو سمراب كتير خرافات كنوع عاسى أيها كتير دو سمراب قال كعيا يجرعال إلا إذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحسن أودين أشي عبد القادر أودا إلا إذا إلهي يشي عبد القادر أسكو أود وحاسا قال كعي كتير محاكم إذا قرافاتك من ددياج إلاني من ددياج حضرته وسدع وحي أكرب بحيان بقدادي قام
iyo baqdaadiya dheer iyo sacdiyo sacdiyo maxaa la yidhaahdaa digri bay ugu magac dareen xadraa rabbana ya rabbana ya rabbana bilighu silatu shamit bina qusada waa miday dhahaan sacdiya leey soo wad ayaga xagee ku imaanaysa waa baqdaadiya dheer weeye taa sacdiya la yidhahda baqdaadiya gaab maxaa ka mid a waxaa ka mid a mandada yaa jilaani aqithnaa yaquusu mandada yaa jilaani gaalnimo bilaahi alcadiim weeye beytkaas qofkii aamida miri diinta ku jiri mahaya waa ka lugaynahaya aqithnaa aan ku macneeyo marka aqithnaa noo gargaar yaa qawthu masdar wey aqithnaa noo gargaar yaa qawthu midka gargaarow madad yaa jiilaani jiilaaniyu noo gurmo laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullah waida stacinta fastacin billaah waida stagaatha fastaqif billah haddii aad qof ka kaalmo dalbayso allah haddii aad qofka gargaar dalbayso allah waxa ka soo haraa shirki iyo gaalnimo iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisii oo dadka lala wadaajiyey iyo baryadiisii wey xaaraamna wey waxaas halkaa lagu haya marka walaalayaal ilaahay aan u towbad keenno garab weyna nagu siiya in aan meeshaa ku baxno oo aan aadno gaalkacyo gallinsoor waxa weeye dhuusamareeb guurceel inaan aadno oo aan u sheegna dadka walaalaha yaga waxa ay meesha ku hayaan in aysan diin shaqo ku lahayn oo aan dacwadda halkaa ka bilowno oo ilaahay nasrigiisa iyo fadligiisa aan ku gaarno aan bilowno waxaa nambarkayga idiin soo saari doonaa shaashadda ma ahan $1 iyo $2 iyo ma ahan wax qaaraan markas baa la dhisahayaa qof jiro loo qaaraaman maayo waxa la dhisahayaa waa markas waxaan idiin soo shidi doonaa akoomo meeshaan idiin soo saari doonaa akoon waxaan meesha idiin soo saari doonaa telefoonkayga fadlan walaalle aan ka qayb qaadano badbaadada dadkeen gaalkacya badbaaday rabtaa dhuusamaree badbaadu rabaa cadaada badbaaday rabtaa guurceel badbaadu rabaa gobolada dhexe badbaaday rabaa ilaahay diinkiisa diin aan ahayn annagu waxa weeye waxaan u naqaanaa kuwa sheekh cabdilqaadir iyo loo tiirinaya sheekh uways iyo sheekh cali samatar iyo haddii ilaahay ku idmaayo walaalayaal aan badbaadina dadkeenna aan isku imaanno aan isku naxariisanno golaha majmaca badbaadada diinta islaamka anigaa guddoomiye ka ah abwaan xaragaa anigaa aasaasay 5 boosoo degdeg ah nala siiyey allaahumma u duceeyo walaalkaas in ilaahay maalkiisa iyo muruqiisa iyo xooggiisa iyo xawadiisa iyo caqligiisa iyo maankiisa iyo rajadiisa intaba ilaahay inuu miisaanka aakhiro ugu daro وصل إلهي وحوي بيعين أنا دعينا ولا كسنت باص نسيه أذيك أنا دعوانا هيا بدك قربها كله شاليدها هيئتها كان عصتها أقول يهندا علماء مسؤوليات بالنصارى قف كستاهي وإنه قريب كقاطع نسمع عن كدس هيو وعن كدس هيو وحوي اللي وكي شيء مركز كاس خيرية بدك يدين تلقوك بعدين هيا قالك عيو إنه قرب كقاطع كعصرنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه اللهم انصر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين هدي آذن أولين حتى وإنه مهم إن هذا مقال كان شير قريسه وهذا لو ذهبته بدك ولا رها المحسنين تا ولكن أبوان حرقه الشيخ حرقه معلن حرقه سيدها ربطاني لها وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته